الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan fariintan u dirayaa hooyo kaste oo waxa weeyaan aadayso u socota meelaha caan baxay ee la yiraahdo quraan akhriska. dad baa xarumo kireystay, boorar bay ku qorteen, quraan saar bay ku magacaabeen, waxa ay dawooyin ku sheegayaan oo dadka cabsiinayaan bay keensadeen, fuustooyin waaweyn bay biyo ku shubteen, ay tahliil ku magacaabayaan, hooyooyinkii iyo dumarkii baa fayl u soo galahaya, gabar bay soo kaxaynayaan xanuunsan, waxay leeyihiin quraan saarka ha la geeyo. markay keento oo gabadhii la keeno ayaa makarafoonno waaweyn lagu daarayaa, markaasaa waxaa la leeyahay adiguna waa sixran tahay, ayaduna way sixran tahay, qofka wada waa sixran yahay, adiga laftigaagaaba jiran, kulligiin baaba jiran, kulligiin baa laydi quraan saaraya. meeshaas waxaa ka socda oo waxa weeyaan fasaadka ah oo aan arkayna oo magaalada Muqdisho aad ugu faafay, wax caadiya ma aha. meeshaas waxa weeyaan quraan akhris ma yaalo, cilaaj loo aadayaana ma jiro, dad business iyo ganacsi u furtay, ummadda xoolahooda raba inay ku qaataan bil baatil, biyo ku rushaynahaya, waxay akhrinayaan maanta oo dhan haddaad dhageysatid wax quraan ah ay ku yar yihiin, sixir iyo wax la mid ay ku hayaan, quraankii googoynayo oo ku talaacubayo oo ku ciyaaraya, dumarkii ajnabiga ahaa fariyaradooda qabanaya oo ku dhagahaya oo taabanaya, qayladhaan iyo buuq waxa weeyaan isa waxan ka dhacaya. qaar kamida waxaan arkay oo fara badan markay wax akhrinayaan dumarkii oo dhan ayaa wada ilmeynaya oo safka ku jiray oo wada ooyahaya oo isruuxahaya. kulligood waxa weeyaan qaar badan oo fiyow oo yimid markay meesha yimaadaan jinkii iyo shayaadiin baa lagu sii daynaya. waxay ii sheegeen rag xoogaale qaarkood inay wataan fargashi ay ugu tala galeen jinka inay ku soo xaadiriyaan, oo marka waxa weeyaan qof dadkaasi ay yimaadaan fargashigaas jinku ku soo xaadiro oo dadkan ay ku sii daynayaan. markaasay caamadii waxay moodayaan oo leeyihiin sidoo dumarka dhan uga ilmaysiiyay, sidoo uga oohiyay soo arki maysid, waa nin jinku uu ka baqa weeye, waa been iyo khuraafaad weeye. yaan lacag lagaaga qaadan, waqtina ha ku luminin. hooyada adigu quraanka ku akhri, adigu quraanka isku akhri, gabadhaada adigu quraan saar, adigu adkaarta akhriso, ilaahay ka magan gal. meeshaas waxa weeyaan fasaadka yaala caadi ma. waxay raggaasi in badan ku caan baxeen haweenka ajaanibta ah jirkooda waxa weeyaan inay taabtaan oo waxa weeyaan ay farayarada ku dhagahayaan, qaar kamida ay qoorta qabanahayaan, qaar kamida ay dharbaaxahayaan, qaar kamida gacmaha ay qabanahayaan, sida ay rabaan waxa weeyaan iyo meeshay rabaan iyo xilligay rabaan ay taabanayaan. waxaa ka dhaca goobahaas kashful cawra, gabadha intay rafato oo jin lagu sii daayo lagu diro in cawradeeda ay faydanto, ninka daawanayo wax ku akhrinaya uu yahay nin ajnabi ka ah. waxa noocaasi waxa weeye cilaaj ma aha, dhaqaalaha lagu bixinayaana xaaraam weeye, saxna ma aha dariiqada iyada in lagu raadiyo caafimaad. kuwa noocaa ku shaqaysanayaan oo magaalada ku soo batay oo farihi ka batay, waxaan leenahay ilaahay ka baqa. dadka beenta u sheegaysaan ilaahay uga baqa, risqi xalaala meel kale ka raadsada. dadka muslimiinta ah oo xanuunsan oo idiin imaanaya ha lugoynina. qaar kamida waxay qorahayaan daawo dhireed ay qorayaan baa jirta oo ay leeyihiin dawadaan iyo dawadaan isticmaal, lacag aad u fara badan buu ka siinahayaa. dawadaasi waxaa laga yaabaa qofkaasi khatar noloshiisa khatar gelisa inay ku keento, waayo wax la yaqaano oo la tajrubeeyay oo aqoon loo leeyahay ma aha. qaar kamida biyahan ay ku akhrinayaan waxaa laga yaabaa biyaha laftigooda waxa lagu akhriyay sixir inuu yahay baa dhici karta, oo waxa weeyaan wax lagu kalsoon yahay ma aha. dadkii waxa arkaysaa habeen iyo maalin waa ku sii socdaan. qaar makarafoonno waaweyn markay ku shidaan oo qofka dhaguhu ay xanuunaan oo uu gacmaha saa yiraahdo ayay leeyihiin jin buu qabaa, waa sixran yahay, quraanku diidaya, waa lagu gubahayaa, markaasaa lagu garaacayaa. dhagihiina waxa weeyaan qofkan dhagaha ayaa xanuunay, codkan weyn oo laga dulshidayo dhibsada ma ahane, jin iyo balaayo midna ma qabo. markaasaa qofkii la garaacaya oo la tumaya, war waxba ma xanuunsanin, war dhibaata ma qabo, markaasaa la tuma wuxuu diidan yahay, quraanku diidan yahay, waa jine. walaalayaal waxa noocaas oo wadankeena ku faafay oo magaalada ku faafay oo culimadu ay ka digeen in badan, gobolada sidoo kale aad looga digo culimo badan ay ka hadleen. waxaan ku biirinayaa codkii culimada mar labaad aan leeyahay quraanka idinku isku daweeya,
سو فاتحة ما تقانان سو قل هو ما تقانان قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس سورة ذا تقاند إلهي وكوكو عافنا يا أدورنا إسكو آخري قولي قدتك تشوغا كو آخري إلهي بري سبحانه وتعالى إنه عذرك كاقاضه قف تقاند دينتيسا يا علوم النبديسا الدنيا مالنا أن كد البناهين وأن رادينهين يقول قرآن صار يقول آخر يقول أغير وحويان طريقة دي الصحراء أهيد ومداس لكن طريقة هذا فافتي وطريقة فساد وين وكسعده هلا قد دكتونادو وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.